war Cabdikariin waxba ma bixiyo wallahi waa iga dhamir ma bixiyo Cabdikariin qofna waxa ma siiyo waxa lagu haystaana waa inta wixii uu bixin la ma yar bixin jiray Cabdikariin wadada iyo guriga iyo aqalka iyo bilixda sideed degma aqalada ka dhisan waa aragteen kuwaas uu Cabdikariin galiyay nin kasta ha iska hadlee ilaahay waxaan ka rajaynayaa maalmo kamida isagoo madaxweynaha in ilaahay na soo cimrigeena gaarsiiyo waxa ii muuqatay wixii uu Hargeysa ka qabtay ee qalbigiisa ku jiray hadduu heli lahaa oo xukunka ay hayn lahayd dawlad xisbigiisu ka soo jeedo inuu Hargeysa fooqiyana dhulka dhigi lahaa wadooyin waaweyn ka saari lahaa wanaagna horseedi lahaa dhaqaalna u abuuri lahaa inta waan huba waxaan aaminsanahay Cabdikariin wallahi baan ku dhaartay ninka muwaadinsan uu yar yahay cali waracadaan waxaan ku caliyow inta inaad intii la cuni jiray intii uu baa wadadii laamida la galiyay wax kale ma aha waa waxeenoo dhiyaal loo sameeyay qurba joogtu qayb la xaadlo oo aan isleeyahay 80% waxay ka qayb qaataan taageerada xisbiga waxaana wanaaga oo aan aad ugu faraxsanay inay yihiin dadka halkan fadhiya qurba joogtii Somaliland oo dhan ka koobnayd ee xisbiga wadani mabaadidiisa aaminsanayd ee taageersanayd aad baan idinku mahad celinayaa ina maanta halkan wada fadhidaan idinkoon gobol iyo qolo midna kala lahayn aad baan idinku mahad celinayaa taasina waa taa waxay taraan ama dalka u taraan saddex shay baan ka soo tilmaamaya waxa jirta dadkeena wadanka ku nool 80% 70 waxay dhowraan masaariif 100 ama 200 ama 300 oo dollar oo dhididkiina iyo xooggiinu ku jiro oo idinku soo dirtaan waxaan isleeyahay tiirarka ugu muhiimsan ee shacbiga dadkan iyo dalkan ku nool ay ku nool yihiin inay yihiin gurba joogta taasi wax la qarin karayo maaha waxaana keenay in ay waayeen dawladii iyo hogaankii iyo maamulkii mustaqbal u dhis lahaa ee ka furan lahaa inay wax bartaan oo ay shaqada joojiyaan oo dadkoodii iyo caruurtooda wax baraan oo ku kalifaysa inay shaqeeyaan inay dadkii baahan yihiin oo 200 ee masaariifta ka kafeeyaan oo ay ka caawiyaan mar haddaan dawlad iyo cid kafaala qaadaani jirin aad iyo aad miisaanka xasanaadka Allah idin saaro waan idin ognahay abaalka hadaa gurba joogtiin aad baan idin ku ognahay waxa kaloon caawa halkan ka sheegaya anigu Cabdikariin Axmed Moogo aan caawa ugu mahad celinayo mar labaad inuu qurba jooga ku ixtiraamay inuu kala soo qayb galo xafladan uu yimaado isagoo odaygii iyo duqii magaalada Hargeysa waxaan aaminsanahay ama aan ogahay Cabdikariin nin kasta ha iska hadlo wuxuu doonaha ku yiraahdo sidoo doonaha u arko waxaan aaminsanahay Cabdikariin wallahi baan ku dhaartay ninka muwaadinsan uu yar yahay ninka hal adag oo ka hal adeeg badan uu yar yahay saddex qisoon soo joogay saddexdaba waan idin sheegaya dawladii madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin ayaanu soo taagnaa madaxweynaha fadhiya oo aanu shir ku jirno oo deegaanka Hargeysa iyo magaalada Hargeysa iyo danteeda laga hadlayo rayigiisii markuu arkay inaanu meesha ka soconayn isagoo u hadlaya reer Hargeysa kadinka intuu ka baxay buu iga raalaha waniga madaxweyne waxaanu soo taagnaa inuu dawladii Axmed Maxamed Siiraayo wasiir ka noqday markuu arkay inaanu afkaarihii uu xambaarsanaa ee maanta magaalada Hargeysa uu la yimi wax kaga qabtay inay ka soconayn wasaaradii uu joogay inuu yiri dadkayaan dhugayna waa mahadsantiin halka ka maray waxa kaloon ogahay maanta markuu maayarka noqday Cabdikariin dadkii uu la tashaday baan kamid ahaa xisbigu iska sharaxay saddex xisbi baa tartamayay golayaasha deegaanka markuu soo xuuraamu dadka soo dhameeyay ayuu Cabdikariin ugu yiri xisbigeedii oran lahayd iska sharax haddaan anigu cun doonaya caaqil baan waxaan oran lahaa dawladda u tag